السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan maanta halkan nigu hayaa barnaamijka gaaban ee maanta halkan nigu hayo waa barnaamij aan soo darsay aan daraasad ku soo sameeyay in muddo aan ku jiray waxyaabaha dhibaatooyinka inoo horseedi kara sideed shay oo burburiya nolosha labada lamaane sideedda qodob ee burburiya waxay ka kooban yihiin sida tan inuu yeesho labada qodobka koowaadi waa inuu yeesho labada dhinacba diin waa inuu ku saleysnaado labada lamaane ayaa isqaba waa inuu ku saleysnaado diin xiriirku waa inuu ku saleysnaado diin waa qodobka koowaad markaan leenahay diin waa in ay dariiqii shareecadu ilaahay noo soo dejiyay aanu marno iyo ka dhigan tahay waa qodobka kale waxa weeyaan inuu yeeshaa xidhiidh wanaagsan labada dhinacba ka dhisan tusaale isku soo dhaweyn labada qoys ay ka kooban yihiin gabadha reerkooga iyo wiilka reerkooga waa inuu labada qof ee xidhiidhka ay leh inay isku soo dhaweeyaan labadoodii qoys ay ka soo jeedeen waa qodobka labaad xiriirku haddii uu lahayn aaminaad iyo kalsooni xiriirkaasi ma sii soconayay ka dhigan tahay markaan leenahay aaminaad iyo kalsooni waa inuu yeesho xiriirku waxay ka dhigan tahay waa in labadooduba ay daacad u noqdaan xiriirkooga wanaagooga iyo jiritaankooga waa inay labaduba daacad ka ahaadaan waa in waxyaabaha ay soo wada mareen waa qodobka saddexaad waa qodobka afraad waxyaabihii ay soo wada mareen hadda ka hor ee xidhiirkooga ku saabsanaa haddii ay labada dhinacba ay ka qiimeyn waayaan war maxaa inaga khaldan maxaase inoo saxsan maxaase inoo qorshaysan haddii aynan labadooduba ay islahayn waxay noqonaysaa xidhiirkoogii inuu nuqsaan ay ku imatay waa qodobka shanaad haddii labadooduba ay lahayn iskaashi wadajir ah oo midna midka kale hawsha uunan ku dayacaynin uunan ku daynaynin iyo maxaa kaa galay hadduu qofku ku mashquulo xiriirkaasi ma sii jirayo iskaashigu waa shayga quraata ee nolosha lamaanaha dhisa kobciya darajeeya ayay ka dhigan tahay qodobka lixaad xiriirkooga haddii uu soo dhex galo qof saddexaadi waa xidhiirkoogu hadduu soo galo qof saddexaad xidhiirkaa ma sii jirayo maxay ka dhigan tahay xidhiirka qof saddexaad uu soo galo waa haddii labadoodaba daaha dabadeeda looga arrimiyo waa daaha dabadeeda haddii looga arrimiyo waxay noqonaysaa in go-aan kasta ay gaadhaanba uu fashilmo go-aan kasti oo ay gaadhaan uu fashilmo muxuu ku fashilmi iloo daaha dabadiisa laga fadhiyaa looga arrimiyaa tooda waxba maahay ka dhigan tahay waa qodobka toddobaad labadooduba waa inay arkaan xidhiirka kugu yahay xor ama madax bannaani way gursatay uu gursaday inuu yidhaahdo maaha xabsi baan ku jiraa inay tidhaahdo maaha xabsi baan ku jiraa labadooduba waa inay xor u yihiin xidhiirkooga ka dhexeeya ay aaminaadna ay ku jirto hadduu meeshuu doono tago hadday meeshay doonto tagto in aynan iska waswaasin ama aynan is-shikin ama aynan is-aaminaad bixin ayay ka dhigan tahay waa qodobka toddobaad haddii ay lahayn commitment ama axdi waxay ka dhigan tahay dhibaataa kusoo wajahan bay ka dhigan tahay marka walaalahayow waxaan halkan maanta inagu soo koobay waa sideedda qodob ee xiriirka lamaanaha waxyeeleeya partner relationship ayay ka dhigan tahay partner relationship labada lamaane xiriirka dhibaateeya ayay ka dhigan tahay marka waxaan jeclaystay inaan halkan la wadaago ayuuranina ninkani muxuu ka sheekeynayaa muxuu ka warramayaa waa cilmi jira oon arkay oon soo darsay oo jira sidaa darteed markaan jeclaan lahaa inaad la wadaagtaan ood
wax ka faa'iidaysataan ayaan jeclaan lahaa. intiina youtube-kayga ku xiran waad mahadsantihiin daawashada aad daawataan. intiina walaalahayo garanayna waad i baran doontaan, saas ayaan idin lehay. hadduu channelkayga na soo gaadho subscribe-tana saara, share-tana badiya, comment-guna waxtar buu aniga ii leeyahay inaad igu caawisaan wixii khalad ah ay aan dhaco ama qof bilaadana nahay ama hadalladan ka boodboodi karaa ama si aan inagu aad rabin baan usoo dhigi karaa, balse laakiin waxaad igula dadaashaan inaad commentigana aad isisaan oo share garaysaan, subscribe-tana aad asxaabtiina la wadaagtaan ayaan jeclaan lahaa. markaas waxaan inaga tagayaa sidaa iyo ammaano allah ayaan idin lehay asxaabta qaaliga ah.